بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 160 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم رواه أحمد بن ماجه والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان maanta taariikhda islaamku ay tahay 3 bishii shanaad Jamadul Ula sanada 1441 isla markaana waafaqsan 29 bishii 12 sanadka 2019 waxaanu ku jiray mowduuceennii ballaadhnaa ee qiimaha badnaa ee ku saabsanaa mucjizaatu nabiy sallallahu alayhi wasallam, mucjizaadka nabiga iyo wixii ku saabsanaa. waxaanu qaadanay darsiga ugu dambeeyay mucjizadii 10aad. maanta waa mucjizadii 11aad. ciwaanna waxaanu ka dhigaynaa المعجزة 11 معجزاته عليه المعجزة 11 معجزة إخباره صلى الله عليه وسلم أن الملك سيكون في صغار هذه الأمة والفاحشة في الكبار والعلم في الرذائل أو في الفساق. يعني معجزة كويتان وحانو كدغينا إخبار يورنك النبي وكسي يورم أمور أن ولد عن وكسي هالله أي تهي إنه ما أرتي إيمان دونه ملكي يمدعتني ماتكو ومدة ضد كذا يرير كائنه ملكي قعنت أقل دونه ضد يرير ومدة مسؤول كان نقون دونان أما عقلي وضع أو يريها أما الدهان وير ورنك وكورمي فاحشة ذي الزنا سيؤفافسها حتى كوذ ووين ويلد إن سمين هيان علمه إنه قلي دون ضف ساقين وحقيرين وان قيمة لهين أما الدنيا كلها سنة وأمور آخر الزمان كدع يسوي النبي وكورهم إخباره بأن الملك في صغار هذه الأمة والفاحشة في كبارهم والعلم في رذالتهم في فساقهم. ورنك وكورهم النبي عليه الصلاة والسلام madaxtinimadka ummaddu inay gacanta u geli doonto dad da'yara faaxishadii zinadu habkii say u faafaysaa hataa dadkooda waaweyn inay ku dhici cilmiga inuu gacanta u galay dad faasiqiina oona maarta qiimo lahayn. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu warḍaahu khadimka rasuulka wuxuu leh qila ya rasuul allahi mata natruku al-amra mata gormeba أما متى وقت جابا نترك أن نكتج إنه إسكديننا الأمر أمرتان بالمعروف اللي سامره يونا يربيتان عن المنكر اللي سكرهبه وجور جورت أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحويان وأصل من أصول الشريعة الإسلامية أصل أو كسابسا كم إذا أصول الشريعة الإسلامية إنه حماتنا اللي سكرهبه ونهجنا اللي سامره goorma arrinka iska dhaafeynaa baa nabiga yaa la weydiiyey. markaas nabigu wuxuu yiri waxaad iska dhaafaysaan idaa dhahara markuu dhaahiro oo soo baxo fiikum dhaxdiina ma dhahara wixii ka dhaahira fil umami qablakum ummadihi idinka horeeyay wixii ka dhaahiray oo ka muuqday oo afcaal iyo ficil iyo qowl markii idinka dhaxdiina la idinka helo ka dhaahiro ayaad ka tagaysaan. qulna waxaan nidhi yaa rasuulallahi wama dhahara fil umami qablana ummadihi naga horeeyay wama dhahara maxaa ka dhaahiray في الأمم أمضيه قبلنا نجهري. قال النبي وحيري ظهر وحكى ظاهري دعنا هلك وحكى حتفا ظهر وحأمضيه وركى ظاهري أن الملك سيكون في صغاركم بمعنى وحظاري إنه مارتي إذا كان الملك في صغاركم ملكي مدحتنماتكم كوين يرير ملكو قعنتو أقلو والفاحشة الزندين في كباركم كوين واوين أي كل عام زينستان والعلمنا في رذالتكم بضم الراء الآخر في رذالتكم. حديثك وحنا عطينا يا صدح الرموت ومضي هراء كل عام
inay ummadana ku dhici doonto waqtigaana aakhiru zamaan ay tahay waqtiga arrimaha ay yimaadaanna amar la is amri wanaag la is amri iyo xumaan la iska reebay inayna jirin. qodobka koobaad waxaa weeyaan mulkiga iyo madaxtinimadku inuu gacanta u geli doono dad yar yara da-yar. almulku fi siqaarikum, culimmadu waxay leeyihiin siqaarulmulki waxaa loo jeedaa almulku fi siqaarikum waa kuwa da ahaan yar wey, sanad ahaan bay da yar yihiin, caruur yar yar oo dhalinyaro oon khibrad iyo waayo aragnimo aan lahayn markii xukunka gacanta u galo. ama da-yaraan looma jeeda kuwa xaqiiriin ah, faasiqiin ah, caqliyan aan fiicnayn, maaragtay aana tayo lahayn markuu gacanta u galo wey. walfaaxishatu fi kibaarikumna waxaa loo jeedaa dadka waaweyn khaas kuma ahe, bimacnaa zinadu iyo fasaadku siduu dhexdiina ugu faafo ilaa heer zinadu markaa dadkii waaweynaa ee waayeeladahaaba hata koleta ay ku dhacayaan. ka saddexaadna walcilmu fi rudaalatikum, cilmigana uu ahaado kuwiina radaaishiina. axad aruwaad xadiidka rag warinaya qaar ka mid ahaa ninka la zayd ibnu yaxya ibnu cubayd alkhusaaci waa axad ruwaati. marka sanadka ragga ku jira baa markuu tafsiirinayay nabiga hadalkiisu i walcilmu fi rudaalatikum ayaa wuxuu ku fasiray, wuxuu yihi idaa kaana alcilmu fi lfusaaq, cilmiguna markuu gacanta u galo dad faasiqiina oon qiimeyneyn. riwaayad kalena waxay ahayd ama tafsiir kalena wuxuu ahaa yani waqiila idaa kaana alcilmu fi man laa yacmalu bihi walaa yuriiduhu ila liamri dunya. alcilmu fi rudaalatikum waxaa loo jeedaa dad faasiqiina markuu gacanta u galo cilmigii oon qiimeyneynin, ama cilmigu markuu maaragtay gacanta u galo dad aana ku camal falaynin oo ku dhaqmaynin, bal cilmigii diiniga ay u dalbahayaan adduunyo darteed, adduunyo aad ku heshaan darteed bay cilmigii ayay u baranayaan. waktigaas weeyaan marka alcilmu fi rudaalatikum waxaa loo jeedaa idaa kaana alcilmu fi lfusaaq, cilmigu markuu faasiqiin iyo dad xun gacanta u galo, ama dad aan qiimeyneynin oo ku camal falaynin bal adduunyo ku raadinhaya. ikhwat alislaam walimaan, xadiidkan markaanu dul istaagna min xaysu sixa, xadiidkan culimmadu waa isku khilaafeen. xadiid horta waxaa soo saaray axmed bin xambal kitaabkiisa musnadka, ibnu maajahna sunankiisa ku soo saaray. xadiidka waxaa saxiixinaya alimaam albusiri, maaragtay wuxuu leeyahay sanadkiisa waa saxiix weeyaan. sidoo kale alimaam adiya almaqdisi fi kitaabi almukhtaara isna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix. alimaam axmed shaakir isna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix. sheekh muqbil alwaadici raximah llahu tacala isna wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan, laakiin sheekh albani waa daciifiye xadiidka. isagu wuxuu leeyahay waxaana laisku haystaa riwaayatu makxuul can anasin. makxuul ashaami riwaayadu ka warinay anas bin malik ma mursala mase waxaa weeyaan mutasilo wey, halkaas isku haystaan, laakiin culimo badan xadiidku way soo dhoweeyeen. sheekha ugu horeeya alimaam albusiri, albusiriy wey. laba nin baa busiri la yidhahda, labadooba masaari ahaayeen. nina nin sunni ayuu ahaa, nina nin suufi ah oo khuraafo badan oo saaxibulburdaha ayuu ahaa. imaamka xadiidkan saxiix yeelay alimaam albusiri ah, albusiriy wey, bidami lbaa la akhriyay wasukuni waawi wa kasri saadi wey, albusiriy. waxaa la dhihi jiray kitaabkiisu waa misbaax zujaaja fi zawaaid ibnu maajah, magaciisana waxaa la yihahdaa shihaabudiin abulcabaas axmed ibnu abi bakr ibnu ismaaciil albusiriy. wuxuuna dhashay 762 hijri markuu ahaa, wuxuuna dhintay 840 hijri markuu ahaa. ninkan nin muxaditha ayuu ahaayo ibnu maajah, sunan ibnu maajah waxyaabaha uu la dheeryahay bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i uu la dheeryahay buu meel ku ururiyey. zawaaid ibnu maajah baa la yihahdaa. ninka kale ee burdaha iskale suufiga isaga waxaa la yihahdaa maxamed ibnu saciid ibnu xamid sharafudiin abu cabdillaahi asuufi albusiriy. isaga wuxuu dhashay maaragtay 608 buu dhashay hijri markuu ahaa, wuxuuna dhintay 696 buu dhintay. idan way kala weyn ismayna soo gaadhin. midka muxadidka wuxuu dhashay 762 baynamaa kaa kale burdaha sameeyey 696 uu maaragtay uu dhintayba. marka muddo ayaa u dhexaysa, marka hasku khaldin. haddii lagu dhaha xadiidkan albusiriy baa saa yidhi waa muxadidkii waxa weeyaan
إمامك شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن أبي بكر بن إسماعيل البوسيري رحمه الله تعالى. كتاب كيس مصباح الزجاجة في زوايد ابن ماجه مركو كهذا وحولي سند كان إسناد هذا الحديث صحيح وينبه. sidoo kale الضياء المقدسي كتاب كيس المختار مركو حديث كان كهذا وحولي إسناده صحيح بي. sidoo kale أحمد شاكر محمد أحمد شاكر كتاب كيس عمدة التفسير وابن كثير كسو قابيي مركو أسنا كهذا حديث كان وحولي إسناده صحيح. شيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه أسنا مركو حديث كان كهذا وحولي هذا حديث حسن وحديث حسن وي. إذا أنت أصلا علماء حديثكم ويسود دويا بينما شيخ الباني وكو خلافي لكن علماء ذا صاروا قاضنا إن هذا الكوض محل شاهد كنا نبي عليه الصلاة والسلام معجزات كيس وحاكم إذا إخباره بأمور لم تقع أمور أن ولد عن إنه كسي ورمه ويكمتها هاي حكم يوم ما تحتني ما تكون إنه أمضى ضد كوضا يركا وأنا خبرات وحباء الله إنه دائرة إنه قعنت أقولي أما حقيرين وأنا مارتي أنا عقلي قمان أو كفلا أو سفاء إنه قعنت أقولي حكم إذا وحكى ورمي فاحشة دي زينو إنه أمضى كل حفاف إلى هير ويلدوا أي كل عيسو أي كل عهيان حكم إذا أموره كهذا إنه علمي وقعنت أقولي فساق dad faasiqiin oo qiimo lahayn ama dad adduunyo ku raadsanaya arrimahaas waa mucjizaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay maantana waxaad moodaa inay taagantahay arrinkaas عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى وقت جاء أن نترك أن نكتجينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانا قول لسامر النهي وحماته لسكره بقور ما سكر في دونا قال النبي حولي إذا ظهر مركو صبحه فيكم دحدينا ما ظهر وحي ما ارتك ظاهري في الأمم قبلكم وماذا إذن كوري وحي كسو دحبحي أما كل دعي مركو إذن كل دعو أما إذن كسو ظاهره أي مارتي أتكتجيسان قلنا وحان يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا وماذا نقوري معك ظاهري قال بحولي الملك ما دعتني ما تكون في صغاركم إذا كان الملك في صغاركم يعني ما دعتني ما تكون مركو كوين يريركا أما السفهذين وقعنتوا أقلوا والفاحشة حماتذين في كباركم كوين واوين دحضوضوا أيكو فافتو والعلمنا في رذالتكم بضم الراء الآخر والعلمنا في رذالتكم كوين أرادشة فصاغ يا حنحن ما أرتي الدنيا دونك أو علمي وقعنتوا أقلوا رواه أحمد بن ماجه. إذا حديث كاس ونوع عدين هي ما أرتي خصلة أما نوع عدين هي علامات من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام أي نوع عدين إلهي سبحانه وتعالى وعن ودي سننا إنه ما أرتي نبي عليه الصلاة والسلام محبذي إلهي نور رزاقه. هل مربع حديثك كو علينا آخرنا هي الحديث 160 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم رواه أحمد بن ماجه والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.